الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بحض الجعل برشدة halkan waxaan kasii wadaynaa markaas cashirkiisa saddexaad ee maadada chemistry-ga weegan aan kusoo guda jirnay cashirkiisii koowaad introduction of hydrocarbons soo qaadanay. sidoo kale waxaan soo qaadanay classification-kooda. sidoo kale waxaan soo qaadanay naming of alkanes aan soo qaadanay. sidoo kale maanta waxaan bilaabaynaa markaas isla naming of alkane-kii nomenclature of alkane oo macnaheedu ay tahay markaas magacaabida alkane-ka ama nomenclature of IUPAC waxaa loo soo gaabiyay I waxaa loo soo gaabiyay international B waxaa loo soo gaabiyay U waxaa loo soo gaabiyay union B waxaa loo soo gaabiyay pure A waxaa loo soo gaabiyay applied C waxaa loo soo gaabiyay chemistry. soo markaas aan gud galno alkane alkyl group. alkane waxaan dhigna markaas methane. alkane markuu joogo waxaan dhigna meesha fiir qalinka aan ku bedelay alkane aan ku dhaafay intan fiir qalinka aan ku bedelay alkyl aan ku dhaafay waa isku wada mid maahan waa laba qoraalo oo kala duwan. sorry okay fiir markaas parent waxaan dhigna set parent aan ku sharaxaa fiiri parent waxaan dhigna waa longest midka ugu dheer or most important waa midka ugu muhiimsan of carbon chain waa silsilada kaarboonada. substituent waxaan dhigna markaas midka lagu dhijinaa midka ku dhigay group of parent chain waa nooc ka mid ah parent chain waa oo meel ku dhigay parent chain kiya lagu dhigaa silsilada dheereed ee nooc lagu dhigay tusaale waa keeni doona. alkyl group aa loo yaqaanaa. substituent iyo carbon group waxaa loo soo qaadaa markaas sample ahaan waxaa loo soo qaadaa R oo ah alkyl group waa soo qaadan doona fiir. alkane oo meesha noo qoran markaas fiir ain oo ah macnaheed methane in maxaa qoran methane intimo in CH4 ee mo alkyl group shal waan soo sharxay cashirkii shalay dib ugu soo laabo waxaan ku dhahay alkyl group waxay yeeday markii alkane-ka hal xabo oo hydrogen laga saaro waxaan dhigna alkyl group. when the alkane group is removed one hydrogen atom on hydrogen bound called an alkyl group aan ku dhahay fiir markaas tan waxay ahayd markaas meeshan saddex ay ahayd afar ay ahayd afartii marka hal xabo laga bixi saddex soo noqoto maxaan dhigna markaas methyl ay noqonay. sidoo kale kan wuxuu noqonaa ethane kan wuxuu noqonaa markaas ethyl uu noqonaa kan hadii isku mid ah uu magacaabo qalad waa. next nomenclature name markuu horeys markii wax magacaabaysid wax magacaabaysid prefix horgalaha iyo suffix iyo dibgalaha longest hydrogen ka hydrocarbon chain adoo fiina markaas meesha u dheer hydrocarbon ku fiirnaa. parent or root name adoo qaadana markaas parent chain ka qaadana mise root name ka qaadana meesha ay fiir markaas had in maxaa ii qoran fiir intuu waxa ay yaalo kan toosan waxaan dhignaa parent chain kan toosan waxaan dhignaa parent chain kan waxaan dhignaa markaas substituent kan waxaan dhignaa meeshan ku dhigan substituent. soo markaas kan waa magacaaba ka bacdi kan meeshu ku dhigan yahay sheega waxaan dhaadii kan methane kan intuu u dhow yahay dhinacaan haduu dhow yahay intaan ku soo tirnaa 1 2 intuu labo u dhigan dhinacaan soo tiri 1 2 kaarboonka labaad ku dhigan hadda waxaan dhaa markaas dhexdu ku dhigan yahay meeshan raba ka qabsanaa markaas muxuu leeyahay 2 methyl waa fiir carbon kuwa labo ama inta soo tiri kuwa labo waa carbon-kii labaad waatana tuuda oo ku dhigan markaas methyl ku dhigan 2 methyl jida kan baranji kan tooskii sheek magaciisa sheekan bro waa kan markaas propane aan dhahay waa aan propane aan u dhahay kan asaa dhameystiran sidan propane aan dhahay. sidoo kale angles ay loo magacaabaan waa kana carbon-kii koowaad carbon-kii labaad waxaa ku dhigan markaas kan maxaa u naqaanaa falaartan dheer methyl aan u naqaanaa waa ka markaas wuxuu ku leeyahay markaas substituent as gives waxay ku siinaysaa markaas name magaca and number magaca iyo numberka ay ku siinay. qodobka saddexaad fiiri substituent number chain to give waxay ku siinay markaas it the lower numberka ugu hooseeyo lowerka ku siinay. fiir markaas kan aan magacaawno inta maxaa noo qoran fiiri 1 2 3 4 5 xab carbon waa waxaan dhigna markaas 5 xab carbon-kii labaad waxaa ku dhigan methyl ku dhigan 1 2 waa kana 2 methyl ka magaciisa sheeg
propubent waa ka pentane sidoo kale kan asna uu magacaabo kartaa shan xab waaye kan waxaan dhigna markaas kan methyl uu tahay meesha uu ku yaal can gashaan waxaan leeyahay markaas kaarboonki labaad waxa ku dhigan methyl kan waa ku soo sharxay aan ku soo sharxay oo ku sii laaw cashiradii horweek aan soo sharxaynay hadda doonayso markaas inay la fahantiin okay next laakiin wuxuu ku dhahay fiiri processkan waa dhigi kartaa laakiin qaabkan qalad waaye means maxay qalad ku tahay fiiri inta ku soo tirsiir 1 2 3 4 ay noqonay hadda inta ku soo tirsiir fiiri 1 2 3 4 ma dhigi kartid markaas 4 methyl ivan bentane 4 methyl bentane dhigi kartid because of waayo meesha u dhow yahay ku magacaabaysa okay aan soo socono nomenclature-kii aan ku jirnaa identical in la cadday substituent number from the end that given numberka asina markaas meesha u dambeys endiga the lowest numberka u dambeeyo combining hadday isku imaadaan like substituent isku bedelashadan sida die hadday laba xab isku imaadaan waxa leedahay die hadday saddex xab isku imaadaan waxa leedahay tri hadday afar isku imaadaan tetra hadday shan xab isku imaadaan waxa leedahay benta iyo wixii la midka use waxa isticmaaltaa common list qodobadani to separate oo kala bixis markaas the position and numbers booska iyo numberada ay leeyihiin sidoo kale waxaan leenahay markaas intaad fiiri waxa uu kala dhigan kaarboonki koowaad ki kaarboonka labaad iyo kaarboonki afraad aa lagu dhigan yahay markaas labaad meel ku dhigan yahay waa magacaaba waan sheegaa ifir markaas waxaan leeyahay 2.2 mujida 4 waa kana hadday laba ku yihiin daaim waxaan ku dhahay hadday laba xab yihiin waxaa dhahdaa dimethyl hexyl hadday saddex xab yihiin waxaa dhahdaa trimethyl haddii saddex yihiin trimethyl haddii afar yihiin tetramethyl waa kaas saas u soconay markaas kan waxaa leedahay fiiri inta kusoo bilaaw karta qalad ay kugu noqonay 1 2 3 ay ku aadeen mifahmsa in 3 ay ku aadeen intan fiiri 3 iyo 2 yaa ku dhow markaas labada ku dhow waxaa leedahay markaas 2.4 labo xakad afar oo markaas laba xab methyl ku dhigan waxa leedahay dimethyl kan tooskan ii sheeg magaciis fiir kaarboon tirso 1 inta tirso 1 2 3 4 5 6 xab waay maxaa leedahay markaas hexane aa leedahay 10 xab isku jirnay 10 xabna la soo xifdiyo 10 kaas hadaysan la xifdin waa cashiradan lama soo kartaan insha Allah okay aan soo socono process kala haday aan ku sheegay fiiri uu ka diida muxuu ku leeyahay fiiri inta daa ka tirsid 1 2 3 meeshan sax ay noqotay afar inta shan ay noqotay ma dhigi kartid markaas not diidmo ma dhigi kartid 3.4.5 ma dhigi kartid 3.5 haven dimethyl ma dhigi kartid why u dhiibaysay because of number meesha ka dhawaa yaala numberka u dhawaa qaadanay meesha u dhawaa ka tirnaysa okay aan sii socono nomenclature of ayubak different substituents waa kala duwanaanshahaani list kala duwan list waxa tirsaa them list tiri then ka bacdi in alphabetical order ka bacd marka tirisid ka bacdan waxa raacda alphabetical order ahaan alphabetical order waxa loo yaqaanaa a b c d soo kala horeeyaan raac also sidoo kale fiiri number of the lowest number or the first waxa fiirsan markaas numberka ugu soo horeeyo fiiri substituent branch midka ku dhigan markaas alkyl group or r group wuxuu noqonaa markaas process u raac fiiri in muxuu ku leeyahay meeshan inta fiiri waxa u raacdaa ku dhahay kan fiiri hal xab samayn methane waay kan meeqay methane meeqa carbon kubna jiray hal xab carbon iyo afar xab hydrogen lama tirnaa markii angle iska taagan yahay laakiin carbonada la sheegaa inta fiiri meeshan muxuu ku yahay hal inta muxuu ku noqonaa labo ay markaas maxaa leedahay fiiri waxa la alphabetical order nidaamkan raacayna list tiri waa kana waa tirsaday ka baa maxaa then ka bacdi alphabetical order nidaamku waxa raacda a b c d soo kala horeeyaan raac haya inta fiiri markaas kan waxa waa ethane waa because of kowa labo methane wuxuu koobnaa jiray laba xab carbon iyo lix xab hydrogen uu koobnaa jiray kan waxa waa sorry ka qasin ethane wuxuu koobnaa jiray laba xab carbon iyo lix xab hydrogen carbon methane wuxuu koobnaa jiray hal xab carbon iyo afar xab hydrogen hay maxaa leeyahay markaas in kan iyo kan e iyo m yaa ku soo horeeyay abcd markaa tirsi iyo ku soo horeyso waxa leeyahay markaas meesha iyadu u dhowdaa ka bilaabay inta tir 1 2 3 maxaa leeyahay markaas
3 hyphen ethyl hyphen 5 waa kana 5 ka muxuu yahay methyl waa heptane tirso heptane todoba waxa laga rabaa koowa labo methane ethane propane butane pentane hexane heptane waa ka heptane baan jeex soo sheegay lambarada waa ku kala gidiyay saad u fahamtid okay next waa kana process kale oo ka reeba oo ku sheegay fiir waa ka reeba muxuu kale 3 methyl ma dhigi kartid inta soo bilaw koowa labo saddex 3 methyl ma dhigi kartid waa u dhiibaysay a b c d n e iyo m ya soo horeeyo e ya soo horeeyo e da ka bilaabay waa ma dhigi kartid saan mana dhigi kartid fiir hadan fiir sidoo kale wuxuu ka reebay 5 ethyl ma dhigi kartid 5 ethyl waa u dhiibaysay inta ku tirnaa inta waa tirnaa inta waa tirnaa meesha u dhow yahay lambarku dhow ka bilaabay maxay markaas kii noqonay markaas ishe 3 methyl 5 methyl heptane sidii ma dhigi kartid not oo ku dhaw ka diiday 3 methyl 5 ethyl heptane ma dhigi kartid sidoo kale waxa kale dhigi karin 5 ethyl 3 methyl heptane ma dhigi kartid nomenclature magacaawdooda ku jirnaa qodobadii todobada heerood aan ku soo marsiinay haday yihiin markaas labo waxa leedahay die haday yihiin saddex waxa leedahay tiri haday yihiin afar waxa leedahay tetra etc iyo wixii la midka are not used in alphabetization lama alphabetization ahaan lama isticmaala alphabetization substituent and then ka bacda xarunta insert waxaad bilowdaa the prefix horgalaad ka bilowdaa fiiri ku bilaaba hay fiir muxuu kale meeshan 5 and 4 ethyl in fiir soo tiri ko labo saddex afar waxa ku dhigan meeshan marka waxa yaalo laba hab methyl halkan methyl aan dheena halkan methyl aan dheena sidoo kale waxaan kala dheena kan waxaan dheena koowa labo asna waxaan dheena ethyl aan dheena soo markaas a b c d ya soo horeeyo m iyo e ya soo horeeyo m e ya soo horeeyo e ya soo horeeyo e kala 4 ethyl aan dhaa haye 2,2 oo means labo iyo labo oo means markaas labo methyl way dimethyl hexane la xaba ku dhigan process kan kale ma dhigi kartid ku dhahay 2,2 dimethyl 4, ma dhigi kartid khalad waa alphabet kale oo dharka raacanay drawing anagoo sawirayna markaas drawingkooda sawirkooda drawingka waa ma dhib badna idin way fududahay insha Allah next lecture aan ku soo gudbi doonaa aad u maasantihiin intaan aan ku guda jirnay cashirkan waxaan idinku dhaafeynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميديا كله حال حبا إني كيلوي سوري رال نخلا وعشرة دي أشي يسود درستين فون فورك وها كان هذا هو جرنا دمام وصول دقينا لكن فريندز كا يصحاب تنو حرن عن كرنا إني بيج كان يوتيوب channel كان أي لو ضبايس لايك ساران سبسكرايب ساران سي أنا جن أن أقول ديرنو ayna u gaarto ardayda kala friends wada u gaaraan insha Allah si umada Soomaaliyeed ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ugu faa'iideystaan waxbarashadan insha Allah aad u maasantihiin waxaan idinka tagayaa markaas sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.